waxaan rabaa inaan idinla wadaago cabsi amni oo xoog leh oo ka taagan magaalada Muqdisho saacadii la soo dhaafay iyo feejignaan ay galeen hay'adaha amniga. maalmii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka taagan xaalad amni ama cabsi amni oo xoog leh kadib markii ay soo tareen digniinaha ka soo baxaya hay'adaha ammaanka ee degan xarunta xalane ee ajaanibta ah iyo sidoo kale kuwa amniga dawladda federaalka Soomaaliya taasoo ku saabsan inay dhici karaan weerar argagixiso oo al-shabaab ay ka geysan karaan gobolka Banaadir iyadoo dadka Soomaaliyeed u dabaaldegaya munaasabadda maalmaha Ciidul Fitriga. Muqdisho saacadii la soo dhaafay waxaa la kordhiyay ciidamada hay'adaha amniga ka tirsan gaar ahaan booliiska iyo kuwa nabad sugidda waxaa sidoo kale la kordhiyay kontaroolada gaadiidka lagu baarayo iyadoo hay'adaha ammaanka ee dawladda federaalka Soomaaliyana ay sheegeen inay ku jiraan diyaar garowgii ugu dambeeyay sidii loo badbaadin lahaa malaayiinta Soomaalida ah ee ku dabaaldegaya gobolka Banaadir iyo deegaanada kale ee ku teesan. sidaas oo kale waxaa la xiray qaar kamid ah xarumihii dawladda ee muhiimka ah waxaana kamid ah garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo ay diyaaradihii caalamiga ah ay joojiyeen duulimaadyadii ku imaan jireen dalka. sidoo kale waxaa dhagxaan hore lagu jaray qaybo kamid ah hay'adaha dawladda sida wasaaradda arrimaha dibadda oo toddobaadkan dhagxaan cusub iyo sidoo kale ciid lagu jaray darbiga wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. aaga xeebta Liido iyo qaar kamid ah hoteelada Muqdisho ayaa la dhigay ciidamo kale oo dheeraad dhammaanna waxa arrimahaas lagu sheegay in dawladdu ugu jirto diyaar garow xaalad amni iyo sidoo kale xog la helay oo tilmaamaysa in al-shabaab ay qorsheynayaan inay weerar ka geystaan Muqdisho maalmaha dabaaldega ciid maadaama dadkii ugu badnaa ay Muqdisho isugu soo baxeen. Mareykanka ayaa shaqaalihiisa ugu digay inay Muqdisho gudaheeda ku safraan wuxuu kaloo sidoo kale ugu baaqay shaqaalaha kale ee ajnabiga ee xalana ku sugan inay dhaqdhaqaaq ay yareeyaan. saacado kadib digniintii ka soo baxda dawladda Mareykanka waxaa Muqdisho lagu garaacay qaybo kamid ah hoobiyaal iyadoo nawaaxiga madaxtooyada ilaa 4 hoobiyo oo la sheegay in laga soo tuuray isla qaybo kamid ah Muqdisho ay ku dhaceen inkastoo aysan geysanin khasaare dhimasho ah haddana waxaa jira khasaare dhaawacyo ah. diyaaradihii caalamiga ah ee ka soo degi jiray garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa waxay maalintii labaad joojiyeen duulimaadka ay ku imaan jireen Muqdisho sababtuna waxay ku sheegeen inay suurtagal tahay in ay weerar ka dhacaan garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. weli ma jiro war rasmi oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya marka laga reebo xogta kale ee aan helayno ay ka soo baxaysa hay'adaha sirdoon ee xalana degan sida Mareykanka iyo sidoo kale shirkadihii duulimaadyada caalamiga oo ayagana duulimaadyadoodii ay joojiyeen. laakiin waxa muuqata in dawladda Soomaaliya dhankeeda ay ku baraarugsan tahay in Muqdisho ay ka dhici karaan weerar amni mana dhayalsanin digniinaha ammaan ee ka soo baxaya xalane sababtoo ah waxa ay Muqdisho ku daadisay ciidamadii ugu badnaa oo isugu jira booliis iyo nabad sugid waxaana la kordhiyay nooca baarista ama habka sugidda ammaanka Muqdisho. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo dhagxaantan cusub lagu horgooyay waxay ka mid tahay goobaha la sheegay in la qorsheynayo inay weerar ka dhacaan. sidoo kale hoteelada ku yaala xeebta Liido ee Muqdisho ayagana dhankooda la sheegay inay weerar ka dhici karaan ama ay ka mid noqon karaan goobaha la beegsanayo ayaa loo diiday in gaadiidku ay tagaan waxaana loo ogol yahay gaadiid iyo dad gaar ah oo shaqaalaha dawladda kamid ah ama xilal sarahaya. muddooyinkii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxay ku jirtay jawi nabdoon waxaana aad u soo hagaagay xaaladda nabadgelyo ee Muqdisho laakiin tan wixii ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday hotelka SYL iyo sidoo kale madaafiicdii lagu garaacay Muqdisho iyo isla weerar kale oo lagu qaaday xarun ciidan oo ku taala deegaanka Garsbaale ee duleedka Muqdisho waxaa aad u kordhay digniinaha ammaan ee soo taraya ee ku saabsan in al-shabaab ay qorsheynayaan weerar ay ka geystaan Muqdisho. waxay warar ku soo kordhay xaaladda magaalada waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe adigana ka mid noqo saaxiibada nagu xiran si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee dalka.